fiidiyowgan like saara waxaan rabaa inaad fiidiyowgan like saarto marwal babwan dulduula hooyo muqdishaan ku dageeya jawi degan ayaan dareema iga daadan maag hayteen duba dalkayga hooyaan ku dalxiis dalka hore dami hey gudaha daaqada xiran fur soo deg dalka hore dami hey gudaha daruriya daaqada xiran fur soo deg markeelo meeshaada istaag bajaajlaha bartiisa ku xili xabad wado ama xeebta u soco ha iga gale xoogaha iyo toor haddii kale bum bum bum. waxaa maanta la shaaciyay imtixaanka natiijada ah ee ardayda Soomaaliyeed ee degta koonfurta Soomaaliya waxaana imtixaankaas u fariistay arday gaaraysay 33,727 arday oo ka kala socotay iskoolada ku yaala koonfurta Soomaaliya. imtixaankaas waxaa baastay arday gaaraysa 25,177 waxaana dhacay 7,000 oo arday oo 6,000 oo kamid ay ahaayeen ardayda dhigata iskoolada ku yaala magaalada Muqdisho. waxaa kaalinta koowaad galay iskool ku yaala magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. haddaba arrintan la yaab kale oo dadku aad u hadalhayaan ayaa ah in ardaydaas inay dhacaan 7,000 oo arday oo 6,000 oo kamid ay degan yihiin gobolka Banaadir ayaa dad badan wax u sababeeyeen inuu ka dambeeyay fanaanka Sharma Boy oo barihii dambe xoog ku qabsaday fanka Soomaalida isla markaasna heesiisa laga isticmaalo barta TikTok-ga. haddaba fanaanka Sharma Boy oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kala kulmayaa dhaleecayn iyo waliba inay dadku aad u dhaleecayaan fanaankan marka la joogo baraha bulshada. haddaba warar soo gaaray ayaa sheegaya in fanaankan la soo taagi doono maxkamad isla markaasna ay la xisaabtami doonaan agaasimayaasha iyo maamulayaasha iskoolada ku yaala magaalada Muqdisho. haddaba daawad adigu sidee u aragtaa inay dhacaan arday gaaraysa 8,000 7,000 oo kamidana ay degan yihiin gobolka Banaadir? ma isleedahay uu ka dambeeya fanaanka Sharma Boy oo barihii dambe qaatay qulubta ardada Soomaaliyeed iyo soo kale dhalinyarada isticmaashay baraha bulshada? fadlan fikirkaagu waa noo muhiim qaybta hoose commentiga noogu reeb. sidoo kale haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar.